golaha deegaanka ee degmada Lughaya ee dhawaan lagu soo doortay doorashadii ka dhacay Somaliland 28 November oo ay tiradoodu dhamay 13 xubnood ayaa doortay gudoomiye cusub isla markaasina lagu dhaariyay xarunta dawladda hoose ee degmada Lughaya ee gobolka Awdal. بالله با إن هذا عدالة يصنع وشغين ليسان دينك يضلك يقولها ديجان كإلا يدين دورتي يزج مدى الوهية سنان يعدالة. إلهي أنا وشغين النوع ولا ديجان هنا سنان يعدالة وشغين ليسان قولها ديجان كيزج مدى الوهية إلا يدين دورتي. fadhigana waa iskugu yimaadeen 10 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka cusub ee deegaanka degmada Lughaya waxa goojo ka ahaa barsaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci iyo mas'uuliyiin ka socotay laamaha dawladda ee gobolka Awdal. golaha deegaanka ee degmada Lughaya ayaa kalfadhigiisan ugu horeeyay ku doortay gudoomiye kaas oo ay u doorteen Cabdilaahi Cali Aw Nuur oo kamid ah xubnaha ugu daada yar golaha si deegaanka ee degmada Lughaya. goluhu ma dooran gudoomiye ku-xigeen waxaana sheegay inay dib ka dooran doonaan gudoomiyaha cusub ee loo doortay golaha deegaanka ee degmada Lughaya Cabdilaahi Cali Aw Nuur ayaa u jeediyay hadalla mahadcelina xubnaha golaha deegaanka ee degmada Lughaya iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kalfadhigaasi ay yeesheen golaha deegaanka ee degmada Lughaya waxaana kamid ah hadalladiisii. waxaa kaloo mahad siinayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Lughaya ee sida wanaagsan soo doortay. waxaa kaloo dadweynaha reer Lughaya aan u sheegayaa in aan qaban doono haddii uu yahay awood ilaa wadada noo ogolaado wixii aan ballan qaadnay oo dhan. waxaan dadka maxay inay musharaxiin si saaxiibada ahaa ee doorashada ku hadhayna waxaan u sheegayaa berrika maalin ay iyaguna soo bixi doonaan. waxaa kale oo aan inaga codsanayaa haddaad reer Lughaya tihiin inaydaan odhanin waxaan dooranay 13 kaas iyo waxa walba qabanaya ee aadna garab taagnaataan. sidoo kalena barsaabka gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci ayaa isagu kula dardaarmay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Lughaya ee doortay gudoomiyaha cusub inay la yimaadaan waxqabad muuqda waxaana kamid ah hadalladiisii. degmada Lughaya waxa weeyaan Cabdilaahi Cali Aw Nuur oo ay dhammaan 10 xubnood ee joogay gudoomiyuhu buu codayn 9 kalena ay codkii siiyeen sidaas uu ku ansaxsan yahay oo aan gudoomiyihii gobolka Awdal aan ku ansixiyay inuu Cabdilaahi Cali Aw Nuur noqdo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Lughaya. aad baan faraxsanahay inaan maxay aad maanta si wanaagsan uga aqbasheen wixii aan maanta talooyinkii iyo aad isku waafaqdeen. waxa farxad gaar ah oo aan jecelahay Ilaahayna inuu garansiiyo intii ka baqanay aan maanta inuu muuqan. maanta garashadiina keentay inaad abtiyaashiina tiraadaan iyagoo naga maqan ayaan haddana doonaynaa inaan gudoomiye ku-xigeenka u dhigna abtiyaashay markay cadadu ka baabto. waxa weeyaan runtii duca weyn baad ku helisaan daayinka idinka siinayay maxay ahaydey xasanaadka ay leedahay waa wax idinka idin wanaagsan. waxaad muujiseen inaad maanta aad walaalihiin iyo abtiyaashiin iyo ilmaabtiyadiin iyo seediyadiin inaad jeceshihiin inaad meel ka soo wada jeesataan oo in walba meesha ku nooshay ka wada faa'iidaysan. ilaahayna waxa ka baryaa iyagana inuu Ilaahay garansiiyo. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aniguna safarkii dheeraan soo maray runtii waxa weeyaan oo taa xabeebtaan ku yeeshay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxtar bay leedahay waxaad ii samaysan aqoonsi ogolaansho intaba ayaad maaragtay maxay daysiiseen taasina waa midaan mahad weyn runtii idinku qabo. ma aha maanta waxaan sanka idin geliyey ma aha maanta waxaan idinku anigu aan maaragtay waxa weeyaan talada wadaag bay leedahay. qolaa imika ila soo hadlaysay boormo igu lahayd oo waxa la yidhi maxay ahaydey gudoomiyihii wuxuu khasbayaa war cidna lama khasbi karo. maanta cidday baalka anigu waan tegaya haddaan maanta wax idinku khasbo oon idinka noqdo
bayaa ii fulinaya qasabka cidna ii fulinayso waxa weeye runtii waa intiina wada joogta inta wadaagtaa wax si kastaba ahaatee golaha deegaanka ee degmada Lughaya ayaa noqonaya golihii saddexaad ee doorta gudoomiye degmooyinka gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, Radio Barkulan, Boorama.